si nabdoon buu jiifsaday. furaashka dhulka waran ee dhexda ka daacsan ayuu ugu gataati dhacay sidii geed qof manaxaan uu gunta ka gooyay. daalka murqihiisa kala qaybiyay oo natiijada maalin dheer oo mashquul iyo mihano ku soo idlaatay. bakhaarku xamaaliga ka yahay awalba uu la yaqaanay hawsha arxanka daran ee sida mashiinka loogu shaqaysto, balse maanta waxba u dheeraa. Alasaydi ayuu bilaabay rogidda gaadhi weyn oo anna tare ah oo cusbada iyo galayda ayuu dhabarkiisa godani ku kaliyeystay. waxa lagaga naxsaday in shaqaalihii kale oo dhan la eriyay kaligiina la iska daayay. muu kala garan karay in ninkaasi yahay war farxad leh mar haddii kaligii la soo reebay iyo inay dhiilo tahay maadaama kadeedka uu madig ku noqonayo, laakiin uu ku qasmayay inuu duruufta bahdilka iyo bahalnimada noloshiisa ka shaqaysto. marmar badan ayaynu ku kalifmanaa waaye aynaan sinaba ku qayibnayn. taas baana maanta Yuusuf Leeb heshay oo ku sii tumatay jirkiisa 40 jirka ku dhaweeya iskii tabcaanka u ahaa. saqbarkii ayuu soo galay qolkiisa qabriga u eeg isagoo meyd la moodo. dabadeed degdeg buu sida caleenta isu duubay isagoo niyeysanaya inuu ku nasto nolol aan nasasho lahayn. qolkan cidhiidhiga waxa buuxiyey gogasha dayicu ka muuqdo, katabaanka midab guuray sidii oo aashita lagu dhaqay ee calalka sida caleemaha u dhooban yihiin una ekaysiiyeen geed hadhac ah. kabarka khaanadaha leh ay ka buuxaan buugaagta qadiimiga ah ee galalku ka kidfameen. miiska iyo majliska isdul saaran ee waxuu ku dul akhristo ee uu dul saaran yahay rikoodhka miimariga leh ee uu kolkol heesaha iyo wararka ka dhagaysto. weysada birta ee furka qoriga ee daboolka u yahay iyo qolfoofka Yuusuf Leeb ee dhuubnaan heeray ka gaadhay leeb loogu naanaysay. qolkan mugdiga waxa if waa tiriig iyo toosh marmar uu gaas iyo xanjaaro u waayo. habeenada daaqada bari eegaysa ayuu ballaqaa isagoo ku taamaya in dayax iyo xidiguhu godkooda ka soo durkaan oo ay u ileeyaan. caawa qolku intii hore waxaad moodaa inuu ka soo koobmay. meelihii bannaanaa waxaa gufeeyey culayska nafsadeed ee Yuusuf Leeb sidii daruuraha dul hoganaya ee xamaaligii maanta ka dhashay iyo warwarka jirdagooyaha ee ka haysta hawsha barri sugaysa. fooxii uu bul ka siin jiray si uu iskaga caydhiyo junuud iyo qurumo aan lala arkayn. caawa muushidan si ka duwan caadadiisii habeenla ahayd. caawa hees iyo idaacadtoonna muu siraadan. xataa surwaalkii jeeniska ah uu ku sheegi jiray dhar shaqo muu siibina waxa uu ka dhigtay dhar hurdo oo uu ka waasiday macawiistii qoodha safaysta ahayd ee uu kal hore ka gatay bacdayaasha. kabaha buurka dirqi buu ku furay, balse sharbaadadii duugga ahaa ee cidhibta dalooshamay iskama saarin. in ka badan intay dhaxanta dhacaysa iska caabi ka tahay waxay ka tahay caajisnimo. waa baralaati xubin kastoo jirkiisuna waxay u ekaatay jawaan raashina iyo joonyad xamuula. caawa wuxuu qorshaystay inuu gamo gar iyo gardarraba. markii uu isku dayay inuu indhaha iskaliyo ayuu ku warhelay koox kaneeca oo si u eeg inay abaabulan yihiin ugu soo xoomay dushiisa. mar qudha ayay jiibta iyo jaanta isla heleen oo cod aad moodid inay ku soo ballameen ku wada yuuseen. jabaqda ay sameeyeen Yuusuf Leeb way kala cuslayd midda ay samaynayso booyadda wasaqda ka qaadaysa dhismaha u dhow. isagoo indhaha isku haya ayuu sacab ku dudaysiri kaneecada. kaneecadii kale gobonnimo ayay samaysay oo way kala dareertay markii dhowr daqiiqo ay yuusaysay isaguna sacabinayay, balse xabad kaneeca oo duqsileeg ayaa dhanna u dhaqaaqi weyday. tooshka uu ku ifiyey ayaa tusay inay tahay mid usweyn oo sacabin iska daaya haddii durbaan la tumo aan ku tegayn. dusheeda ayuu ka arkay inay ka go'an tahay inay hurdada ka carqaladayso sida isagaba uga go'an tahay inuu caawa hurdo helaa. kolkii hore habnabadeed ayuu islaha ku kala eri, haddase talo faraha way ka haaday. inuu sacabinta wax ku daraayay la ahaatay inuu xabadda kaneecada dilo oo uu saacadaha kooban ee waaberiga ka hadhay indha casaysto ayuu ku tashaday. tooshkii ayuu ku qabtay isagoo buurkiisii waaweynaa gacanta kale ku hahaabanaya. kabti ayuu kaneecadii sire la eego, balse uu la waayey oo kabtii oo koonkoonsanaya ka soo go'day kabarka buugaagtiisa. waxaa dhulka u soo dhacay nuqul qaraami oo ah sheekada Franz Kafka ah ee Dylan Rogan. markuu arkay ciwaanka sheekadan ayuu ku fakeray in kaneecadan baasi noqon karto qof gibil doorsoon oo kaneeca loo nasakhay tabtii jilaaga sheekadaasi Gregor uu isu dhalan rogayo. haddana wuxuu isweydiiyey haddiiba ay qof is dhalan rogay tahay cidda ay noqon karto. waxaa judhiba ku soo dhacay inay noqon karto mulkiilaha bakhaarka oo jiif iyo joog buu diidan oo isu soo nasakhay si uga carshacarsheeyo hurdada oo uu berri marmarsiiyo ugu helo inuu ku canaanto inay hurdadu saa kala tagtay. intii uu rogrogayay khayaalka ayay kaneecadii dhowr jeer carjawda dhagaha iyo luqunta ka qaniintay iyadoo malaha tusinaysa inay kaneeco caadiya tahay. iyadoo gidaarka ku taagan markuu arkay ayuu dhirbaxa iskula soo daayay, laakiin way u bannaysay oo wuxuu gacan buuxda la helay darbi aan talbiis iyo rinji toonna la marin oo xanan leh. haddana uu isku soo daayay iyadoo miiskii iyo gambarhkiis dul yaalay ka agyuusaysa. laakiin markan wuxuu jiiray tiriigii oo gaaslaan u bakhtiisnaa. shignihiisu maadaama aanu sifaysnayn aan gulcurka la socsooci karin, waxaanu isagoo ganan laabta la helay lugihii majliska. rikoodhkii miiska saarnaa ayaa ku sigtay inuu dhulka ku soo qadar jabo.
halgankii uu kula jiray kaneecada waxa uu marayaa saacaddii saddexaad. iminka waa 4tii habeenimo, welina muunasan kaneecadiina may daalin. waxaad mooddaa in kaneecadu u samaysan tahay dhibisteenna. haddii ay dhiigga aamusnaan ku jaqi lahayd oo iska tegi lahayd lurmay lahaateene, waxay qofka iskugu dartaa qayle iyo qaniinyo. taasina wax qofka ka qabta maaha. daakiraadda masaajidada u dhowdhow ka baxaysa waxay isaga la tahay riyo. kaneecadii waa taa dhanka katabaanka ka yuusaysa. intuu ifiyey ayuu isku dayay inuu waanwaan u furo oo uu la hadlo sida ay dhaga wax maqlay iyo caqli wax qaata leedahay. adigu xabiibsatay, aniguna xiiqaya, ma kala faataxaysanaa oo ma isnabadgelina, ayuu ku maslaxay. balse wuu qabsoomi weyday. wuxuuna kadis ku arkay iyadoo soo jaran oo indhaha ka qaninis leh. inta uu foorsaday ayuu gacantiisa midig la tiigsaday oo faraha isku laabay sidii uu feer duubanayo. waxa mar qura uu waayey yuuskii, wuxuuna kala garan waayey inay abhintiisii ku joogsatay oo iska tagtay iyo inay isnabayso. dhaxmaha dhacaya ayuu dhididsan yahay. wuxuuna isku dayay inuu gacantiisa midig wejigiisa ku dhididtiro, balse wuxuu dareemay in gacantiisa wax la socdaan oo dhafoorkiisa ku hadheen. far iyo suul ayuu ku soo qabtay. caloosheeda dilaacday iyo baalasheeda qarada leh ayuu ku gartay in waxan yahay kaneecadii giddiga caawa nafta isugu keentay. daqiiqaddaa uu yaqiinsaday in cadowgii hurdadiisa laga gacan sarreeyey iyo waxa isku xigay aqiinkii salaada subax. bakhaarka waxaa la furaa marka sidaa loo salaamo naqsado. inuu seexdo uu shaqada waayo iyo waxa gudboon inuu istiilo uu hurdada waayo. weligii uu maqli jiray laba daran mid dooro, balse saaka ayuu toos u dhex yururaa dooxada laba boglaynta ah. markii uu aroortii soo kalaayay uu bakhaarkii oo markaa la furay iridda ka soo galay, ayuu war ka kulul qaniiyadii kaneecada kala kulmay mulkiilihii bakhaarka. waxaa yuusuf leeb loo sheegay in shaqaale dhimis dheeriya la sameeyey oo isagana la fasaxay. laba ereyba muu fahmin. shaqaale dhimis, waayo meeshaba keligii baa ka shaqaynayay, iyo fasax, waayo ereygaasi waa u bushaaray qof sida yuusuf leeb kadeed soo miray. haddase wuu ogaaday in loola jeedo eryid. inuu kelmad aragtidiisa ah soo jeediyana looma ogola. waxaana lagaga naxsaday inuu iska laabto oo irsaaqadaha kale ka dhowr sugo. xaggee joogtaa irsaaqada kale loo tilmaamaya? ma kaneecadii dullaanka ahayd ayuu karsadaa? qof loo qoosgoynaya asalkaba waxaa lagu sasabaa oo loogu suuxiyaa irsaaqad baa kuu laaban iyo hadallo la naasnuuga. sawtaasi quursi iyo digasho ma aha. markuu albaabka meheradda ka soo baxayay su'aalo caynka ah ayaa adduunkiisa ku dhex jiray. kaneecadii aad saaka dishay armay dhab ahaan u ahayd mulkiilaha bakhaarka oo doorsoon, dabadeed uu iminka ka argoosanaya, ayuu xataa ku fakaray. isagoo hiiftaamaya oo iscilkaambinaya oo indhihiisa ay qoomama ka muuqato in ka badan inta ay qaadira ka muuqato, ayuu qolkiisa isu soo dultaagay. inta uu lugo lafa isu suran ah gudaha u tallaabsaday, ayuu furaashkiisa isku muguujiyey sidii dhadhaab samada ka soo shalwaday. kadibna intuu rikoorkiisii daartay heesta maxamed mooge adduunyayu xaalkaabe, ayuu ismaqashiiyey. walle bakhaarkaa xun kaneecadaa dhaantay. wuxuuna imaansaday in hawsha ka gashay kaneeco lala diriraa ay si laxaadle uga yartahay midda kaga baxday inuu hal kadbada oo milixa raro. wuxuu u muuqdaa mid ka shalaynaya dilkii uu kaneecada u geystay, oo haddii aanad disheen habeen kasta camal xamaal ka fudud ayay ku abuuri lahayd, ayuu iskula sheekaysanayaa. indhihiisu saqafka siliga heerheer kale bay ku takhlan yihiin, dhegihiisuna rikoorka midigta ka xiga ayay ku maqan yihiin. maskaxdiisuse waxay u fogan tahay mugdiga mustaqbalka iyo waxa bakhaarka iyo kaneecada xigi doona.